qofka guur xalaala soo mara iyo qofka aan soo guursanay zinaystaa way kala duwan yihiin. qofka zinaystay aan guur xalaala soo marin isagu waxa kan waa markii ugu horeysay waxba kama yaqaan. sidaa awgeed shareecadu in boqol shaabuug oo dhangadood lagu dhufto, xabsina la dhigo ama la masaafuriyo ayaa shareecadu ay sugtay. haddii ninku guur xalaala soo maro oo macaanka uu guurku leeyahay rasuulku ku sheegay shahru casal, bishaa hore ee guurku inay tahay bil uu rasuulku ku matalay malabka oo kale, macaankii xalaasha iyo guurka ee uu soo maray ee jidhkiisa tin iyo cidhib wada gaadhay hadduu ka dambaysiiyey macaan kale oo xaaraan ah waa in xanuun looga dambaysiiyaa tin iyo cidhib wada xanuujiya, waa in looga dambaysiiyaa. waana aayad qur'aan ayay ahayd, qiraa'adeedii la nasakhay ashaykhu waashaykhatu idaa zanayaa farjumuuhum albatta. aayad qur'aan ay ahayd, akhriskeedii waa la nasakhay laakiin xukunkeedii wuu yaallaa.